Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadaydan waxaa soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Top 5 oo maanta aan kusoo qaadan doono 5 heesood oo ka mid ah heesayga oo ka kooban. Heesta koowaad waxaa la yidhaahdaa Dabac, waxay soo baxday 2025. Waxay leedahay: xisku doonayaan kuu diidayaa, qalbi daacadan dembi saaraya, dabin laydhigaan ka dulboodaya, qof idili rabaan dawo siinaya, in dadaalayo dagan baanan ahay. Daymada indhuhu halkay doonayeen ka duugo ma rabo inay sii dayaan, sababtuna digtooni iyo weeye dabac. Ruux igu digtaan u ducaynaya, daruur qaaday baan weydi idhahaa, caano daatay baan daba qabanaya, sidii doqon haftana waan dulaysanoo, diriciyo ma garan kaan ahay dabbaal. Daymada indhuhu halkay doonayeen ka duugo ma rabo inay sii dayaan, sababtuna digtooni iyo weeye dabac. Heesta labaad waxaa la yidhaahdaa Murug iyo Riyaaq. Waxay leedahay: waxayna soo baxday 2026. Waxay leedahay: dunidu waa wada madow, dadkii maray oo ka guur, keligay baa jooga meel mugdigu yahay wehel rumaad. Gaawaan mayga ku culay, mudhaayo jaan baan godladay, maqaar eey baan gogladay, mid kaloo dhiig lan huwaday. Miciin iyo garab ma laha, misbaax iyo nuur ma laha, mataanaha laga helaa, murugo iyo waa riyaaq, ma moogi in aan ambaday. Waxaan dhex muquurayaa mawjado xoog loo dhib badan, maankiyo qalbigaygii oo lumaan maaminahaya. Miisaankayga isdhimay, jidkaan marayaa isxidhay, daruuro muglaa i koray, waxaan muhday baa ribaday. Warmihii cadowgaa i muday, naaskii murugtaa godladay, miiqaamkaygaa burburay, mooraalkaygaa hanjabay, ma moogi in aan ambaday. Heestaas intaas ku dhan tahay. Heesta saddexaad waxaa la yidhaahdaa Degmo, waa heesihii 2026. Wuxuu yidhi: anaa ku dawaysanaya, da'daa kaa dhowranaya, dulqaad kugu maamulaya, jacayl kugu doojinaya, dareen kugu qaabilaya, darxumo kaa ilaalinaya, dharaartii ku daawanaya, habeenkii ku daafacaya. Anaa kula dadabgelaya, xigtadaa kaa doonanaya, degmoy ku aroosanaya, damaashaad kula maraya, dunida meeshaad jeclaato. Anaa kugu daadinaya, ubaxyo uu da'ayo caashaq, durduur kaa waraabinaya, diiftana kaa baananaya. Anaa dabin kaa jiraya, cadow kaa daafacaya, anaa darsi kuu dhigayo, duruus kaa qaadanaya. Anaa kula dadabgelaya, xigtadaa kaa doonanaya, degmoy ku aroosanaya, damaashaad kula maraya, dunida meeshaad jeclaato. Heesta afraad waxaa la yidhaahdaa Naxariista ii badi, waxa weeye heesihii 2023. Waxay tidhi: qofka neceb naftaydow, qalbi kuu nadiifa kugu yidhi naxliga iyo iska daa nuxuustoo, nabar ha igu soo ganin, anna ha iga naawilin, ha igu nuuxsan anigoo kaa filaya neecaw, nitaaqana ma fiicne, neeftiyo hawada iyo xigagoyn naruurada. Nabdigaygu kuu xalan, cuqdad kugumaan nabin, niyadiyo ka shaydee, iska naar ibliiskoo naxariista ii badi. Qofka neceb naftaydow, anoo nolosha hadaf ka leh, jecel nabadda uunkoo nafar aan dhibaatayn, naxdin ha ii horseedine, dhiirigelye ii noqo. Nacas ha iga meel dhigin, ha imoodin naanaab, ha igu naaxin hadimee, nasri ii rajeeyo, ii arag qof kuu nugul. Nabdigaygu kuu xalan, cuqdad kugumaan nabin, niyadiyo ka shaydee, iska naar ibliiskoo naxariista ii badi. Heesta ugu dambeysa Barwaaqiyo Nabad, iyana waa heesihii 2023. Waxay tidhi: nacabkaagiyo qofka kuu nugul, naf yahay kala garo, ha nusqaamina noqo ruux adag, oo namiimkiyo naxli beeraha iska naarto aan ahayn nacas. Intaad nooshahay najaxo farax, ilays iyo nuur ku nagaado, naaska caashaqa dhaaxanuugo, barwaaqiyo nabad niyadaadiyo nabdigaba geli. Nafsi iyo eed nafarkii gala kuma naaxee, nadiif ka ahaw naxdin iyo xume, naxariistuna waa nashaadee, sidii nebigii fal naftayday. Intaad nooshahay naso oo farax, ilays iyo nuur ku nagaado,
naaska caashaqa dhahan nuugo barwaaqiyo nabad niyadaadiyo nabdigaba geli. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta barnaamijku halkaas ku dhan yahay.